waxaa maanta magaalada Qardho ka furmay kala fadhiga toddobaad ee golaha deegaanka ee degmada Qardho waxaana looga hadlayay waxqabadka sanadkii tagay ee 2018 iyo sidoo kale qorshaha sanadkan cusub ee 2019 Maxamuud Yuusuf Caamir ayaa warbixintan Qardho ka soo diray kalfadhigan oo ah kii 27aad ahna kii toddobaad ee golaha deegaanka degmada Qardho ayaa lagu qabtay hoolka dawladda hoose ee degmada Qardho waxaa soo xaadiray 20 ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka kalfadhigan ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka kan degmada isduwaha wasaaradda haweenka agaasimaha madaxtooyada dhalinyaro gudoomiyaha degmada Qardho Cabdi Saciid Cismaan oo kalfadhiga furay ayaa soo bandhigay qorshayaasha fulay sanadkii tagay iyo kuwa qorsheysan sanadkan wuxuuna bulshada ka codsaday inay maamulka garab istaagaan kuwaas oo ay ugu horeeyeen labada wado oo magaalada oo wadada bariga iyo wadada galbeedka iskuulka runtii xurgoble oo iyadana la dayactiray afar MCH oo iyadana la dayactiray oo magaalada gudaheeda iyo dibadeeda ah MCH ka meesha la yiraahdo Shibiraale oo isna fidin lagu sameeyay afar iskuul oo iyagana magaalada gudaheeda iyo magaalada dibadeeda laga sameeyay runtii intaas waxay ahaayeen waxyaalaha la qabtay waxa kaloo la sameeyay 16 wado oo magaalada gudaheeda laga furay waxa jiray iyadana systemka biyo balaarinta tuulada la yiraahdo Xabaalreer oo iyadana systemka loo balaariyay waxa iyadana jiray ceelka 2017 waxyaalo fara badan baa laga fuliyay degmada Qardho iyo agagaarka iyo tuulooyinka hoostiga intaba qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay kalfadhiga ayaa hadallo ammaan iyo dardaaran ah u soo jeediyay golaha deegaanka waxaana ay xuseen in ay ku garab taagan yihiin shaqada adag ee hayaan balaaradda socodka magaalada qorshe iyo town planning oo jidkeeda oo MCH-keeda oo iskoolkeeda inuu inoo jiro baa fiican gudoomiyuhu waa ka dhawaajay oo waxbaa samaysan oo la wadaabayo ayaa in magaalada qorshaha lagu daro in police station ay magaalada hesho hal police station hadii halkiis dhaco inta kan laga soo ordaayo lagama gaari karo hawshin inta la qaban lahaa taana waa baraarujin amniga kor loo qaado waxaan xoojinayaa oo rabaa gudoomiyaha golaha deegaanka ka codsanayna oo golaha deegaanka iyo dhamaantay ka codsanayna in la sameeyo qorshaha lagu daro barnaamijkii iska wax u qabsadaha in la helo waxa weeye aad iyo aad baad u shaqaysaan waa idin hambalyeynayna golaha deegaanka run ahaantii waxa weeye wanaag iyo sharaf iyo wax qabad baa muuqda waxqabadka waxa weeye markii aan qabsanayno waxa weeye saas step loo soo bandhigayo waa wax guulo aad iyo aad u muhiim ah weeye run ahaantii wax muuqda baanu aragnay waana idinku hambalyeynayna 100% waxaan rajaynaynaa mudaya mar labaad mar saddex nagu soo celcelinayna dhulkii rasmiga ahaa wali inagama hayno oo dhamaan dalada dhalinyaradu ama hogaanka dhalinyarada hadaa u nahay waa kalfadhiga saddexaad aan codsanno dhulkii dhalinyarada in la bixiyo waxaan rajaynaynaa mudaya kalfadhiga kan waa kalfadhiga saddexaad aan si toos ah dhulka uga hadalno hadda muhiimadda ugu weyn waxa la soo hadal qaaday wuxuu ahaa ambulance-yaan oran wuxuu ahaa dibdimis hadda idinku contribution u horeeya bilowdaan 2 bilood inuu keensan karaa hadda madaxa gelisaan contribution samaysaan kalfadhigan kaga hadashaan waa soconaya gudoomiyaha gobolka Karkaar Cabdullaahi Maxamed Barre ayaa ka hadlay gabagabada kalfadhiga inta gacanta ku haysa kamaadka shacabka la qabanaya iyaga taageera u ah iyaga howlgal u ah waa inay garbahaaga taagan yihiin shacab taas waxa la doonayaa marka golaha deegaanku waxyaalo badan baa muuqanaya oo aad ka gaabiseen xataa maamulka inta executive-ka idin ah waa 7 qof 29 nawaatiin 22kiina kale waxa la doonayaa inaad awood siisaan tala siisaan shaqo la qabataan wixii aad dareemaysaan inay iyagu qaban karin Maxamuud Yuusuf Caamir warbaahinta RTN magaalada Qardho.